wararka asxaabta qaaliga naga soo gaadhaya gobolka Awdal iyo magaalada Saylac iyo gobolka Salab waxa kamid gaadmadii saakigada bulshadu bilaabay ilaahay baa uga heliyay ciise asxaabta qaaliga sidoo kale waxa kamid in mataqaanaa weerarkii gaadmada ahaa ilaa shalay ilaa mataqaanaa maanta istaba jooga ahaa ay wadeen sida xaqiiqada aan wararka ku hayno jabhadda ama mataqaanaa ciidanka madaniga ee Gadabuursi wararkaasi warar kale ay asxaabta qaaliga rabaa bal inaan halkan igula wadaago iyo xaqiiqada dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray beesha Gadabuursi iyo sidoo kale jabhadda ama ciidanka madaniga sidoo kale waxaan leeyahay asxaabta qaaliga iyadana oo meesha ka maqnayn ciidanka mataqaanaa difaaca ee beesha ciise ee ciidanka madaniga oo iyaguna jug weyn u gaarsiiyay ciidanka ama mataqaanaa beesha Gadabuursi iyo wararkaas iyo mataqaanaa nin oday caaqila oo mataqaanaa runta iyo xaqiiqda inoo ayo sirab badan banaanka keenay ayaa raba asxaabta qaaliga la wadaago bas meesha muuqaalka mataqaanaa like sar sidoo kale subscribe sar aad ugu maasay asxaabta qaaliga waxaan rabaa hadaba haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow waxaan rabaa muuqaalka inaan jacayliga ila daawado gaadmadii saakigada bulshadu bilaabay ilaahay baa uga heliyay ciise suxunna waa u soo jabeen war abtiyaal laba wajiileyn bili aadanku kuma badbaado ilaahay kor u eega haddana waxa boorama ka maqlayay waxaan websaydada ku arkayaa dawladdaana laysay waa ninkii yidhi ilaahu ka yarigahayo ka weynigahayo ilaahu ka yarigu soo daa waa ninkii yidhi weyl baa igu joogsatay horena run baan uga sheego way dhibtay maantana hadday dhimanayaan iyo hadday dhibaso anuu ilaahay baan ka baqayaa runka been ka baqmaayo labadaa jeer ee shalay iyo doraad iyo maantaba ciise wuu jabiyey ciidan hubaysanoo uga yimid etoobiyana ma jiro ciidan hubaysanoo jabuuti nooga yimid jabuuti goormaanu heshin annagu ma jiro dad aan somalilan laga lahayn dad somalilan inta u mudana dad somalilan wasiirada u mudana dad aan madaxweyne ku-xigeen weli ka dhacin wasiirada ugu badan ee ugu mudana leh maalin walba tookh iyo kibir in laga yeelo maaha ilaahay baadna qabsane colaadda ciise iyo Gadabuursi ka dhaxaysay waxay soo jirtaba ha soo jirto kacdoonkii koobaad ku Somaliland loola jeeday buu ahaa maca kan imiga socdaa wixii ka dhacayna waa la ogaa waa la nabadeeyo waa tii dhammaatay labada beelood dib baa nabad looga saxeexay ciise iyo Gadabuursi waxaynu ognahay gobolka Awdal boorame maalmahan waxbaa ka socday ama xisbi ummad la yidhaaha lagu dhawaaqo ama barasaabku hala tacaala dad badan culays siyaasadeed uu jiraa oo loola jeedo in Somaliland haddii haddaba qumbula durriye lanagu ridayo iyo haddii atomic bomb lanagu ridayo iyo haddii aroorta la kala dareerayo ilaahay runta sheega buu yidhi oo ka baqi mayno Somaliland aanan ka xiginna caabudi mayno ma caabudna dee Somaliland annaga ugu waxtar liidana Somaliland ninkayga hadlaya min qori qaadashadii ilaa maantoon hadlayo Somaliland difaaceeda mooyaane ma fac anigu aan ku hayaa ma jiro kuwa nooga dheefiya dheeba badanoo la habo oo la sasabo oo la biilo